shir si weyn loo saagaasimay islamarkaana muddo maalmaan qaato ay isku yimaadeen cuqaasha indhaargaradka iyo weliba guud ahaan laabeenta beesha yoon ismaaciil ayaa lagu qabtay degmada bohol ee gobolka sool waxaana ay beeshu kaga tashanaysay shirkani danaheeda iyo aayaheeda dambe ee beeshani yeelan doonto waxaana markii uu shirkaasi soo gabagaboobay ay beeshan isla afgaratay qodobo dhowr ah oo ay arkeen in ay wax ka tari karto danaha iyo xasiloonida beeshani waxaana ugu horreynba madashaasi sida weyn la iskugu yimid ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka hormuudka ah ee taladu ka godo ee beeshani leedahay waxaana iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa beeshu shirkeedu wuxuu ahaa shir daneed iyo arrimaha reerka oo lagaga tashanayey sidaa awgeed waxyaabaha dhaca amar ilaah bay ku dhacaan hase ahaatee waxa wacan inay afgo'aan kuwii ugu dambeeyey marka la soo qaado dawladdu go'aan bay ka soo saartay hadday dib u dhaceenna sidiiba ay yacni dawladdu ugu dhawaaqday baa marti loogaga yahay shaqaqooyinkii dhacay ama dagaaladii dhacay shaqaaqa lama yaada say yihiin baa loo yahdaa dad baa ku dhintay ku naf waayey ku dhaawacmay ee foosha xun ee jiidaha nin badan ka soconayey iyo afgo'eela ma waxaan ku jirin baa la soo gelinayaa mise wax ku jira baa laga saarayaa baa gooroorin jira tii ka horreysay ceelaf weyn nabad baa beelis la qaateen meel baa la dhigay waanu ku ayeedsanay halkaa la dhigay in lagu sii adkeeyo oo lagu ilaaliyo ayaanu iyadana ku ayeedsanay wixii ka soo daba tuura iyo ducaducayn ah waxaanu leenahay ha laga daayo cidda ku haysa iyada istreemi doontay waxaanu leenahay ha ka dayso beesha yoonis ismaaciil ee shalayto isugu timi allabariga iyo ducada iyo wadatashiga danaha guud ee beeshu ay leedahay lagaga wada hadlayey in beeshu go'aamadii ay shalay ka soo saartay wadatashigeedii waa kuwa cuqaasha iyo waayeelka kale ee iga horreeyey ay soo gudbiyeen aniguna sidaasuun baan ku ayidsanahay kagana mid ahay daaco jiif caaqiladii reerka ugu dambayntii waxaa shirkaasi soo gabagabeeyey kana akhriyey go'aamadii ay gaadhay beeshani maxamed jaamac xasan daadey waxaanu yidhi haddii ay beeshu wada tashatay isuguna timi allabari waxay go'aan ku gaadhay kow waxay beeshu ugu baaqaysaa beelaha ay wada degan yihiin ee ay jaaraanka yihiin meel kastay joogaan ma nabad ba ugu baaqaysaa gaar ahaan beesha maxamuud garaad oo iyadana aanu dalab iyo codad ka hayno aad iyo aadna waannu u soo dhowaynaynaa inay beeshu isla eegtay markay dhinac walba iska taagtay waxay beeshu isku raacday oo si mug iyo miisaan leh iyo midnimo leh isugu raacday nabadayntii ka socod degmada ceelaf weyn ee hore u dhacday inay sidii ay nabadayntaasi ku dhacday ay beeshu u wada qaadato waa biyo kama dhibcaan arrintaasi waxaan arrintaasina waa go'aan ay beeshu isku raacday cid allaale ciddii ay hadda cusub tahay wixii dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaannu annagu arrintaa u daba fadhinaa sidii dawladda hore uga dhaqwaajisay go'aamadana ay ku gaadhay ummaddana ay ku soo gaadhsiiso ugu sheegtay annagu arrintaa dawladda ayaannu u daba fadhinaa dawladdaannu go'aankeedii ka sugaynaa madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaannu leenahay oannu ka codsanaynaa madaxweyne waxaan ilaahay jeclayna hanagu kallifina waxaan aadmigu somalilan u dhashay jeclaynayn hanagu kallifin waxaanan annagu jeclayna hanagu kallifina waxaasi waa maxay ilaa maanta iyo maalintii arrintaasi dhacday dagaal sokay ayaannu ka dagaalamay inuu ka dhaco jiidaha aannu degaanka ka nahay laakiin waxaad mooddaa dagaalkaasi inuu isa soo tarayo oo aanu mar radamayn waxaannu kaa codsanaynaa madaxweyne arrintaa inaad si mugle u soo farageliso sidiiq maxamed aaraan saab t v ceelaf weyn